halkani waa BBC oo idinkala hadasha mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan khiyaarta hawada naga dhageysanaysa ee saacadda Afrikada bari haatan waa 7 subaxnimo. qodobadan idaacadeena idinkugu haynana waxaa ka mid ah Mareykanka oo gargaar cusub u fidinaya Ukraine iyadoo kumanaan rayd ah ay wali ku go'doonsan yihiin magaalada uu aadka u saameeyay dagaalka. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo sheegay inuu soo dhisi doono dawlad tayo leh dadkana ka codsaday in ay la shaqeeyaan. waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. waxaan adiga iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan. dadka reer Nigeria waxa ay u dareerayaan doorashada dalkaasi. waxa kale oo aad maqli doontaan imika sheekooyinka kuwa ugu xiisaha badan waxaa kamid ah nin sheekada dibiga shaqaale la yiraahdo dad reer Muqdisho ayaa wiilkiisii la hadlay oo Norway jooga. wiilkiisii baa ku yiri aabo gabarna aroos raba wadina ara khayra sheegtay gabadha ciday ahayd wiil. sheegadaas oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan wareysiga siyaasi ee lagu yaqaano sheekooyinka maada iyo qosolka leh iyo dabcan ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan. barnaamijkan oo soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Caddo anigoo Faadmo Macalin Abu Karaayana idin la socodsiinaya. subax wanaagsan dhageystayaal. marka horese waxaan ku bilaabeynaa wararka caalamka ee BBC-da. Cabdishakuur Cabdullaahi Casowe ayaa diyaar u ah. mahadsanid Faadmo Macalin Abu Kar. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu gargaar military oo hor leh oo ku kacaya $1 bilyan oo dollar u diray Ukraine, waxaana qalabkaas ka mid ah gantaalada casriga ah. wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in uu wax kasta u sameyn doono sidii uu u xaqiijin lahaa in Ukraine ay hesho dhammaan hubka ay u baahan tahay. booliska dalka Brazil ayaa sheegay in nin loo qabtay inuu ku lug leeyahay maqnaashaha wariye u dhashay Britain iyo khabiir ka soo jeeda dadka asal ahaan u degan wadankaas uu qirtay in uu dilay labada qofba. wariyaha iyo ninka la socday ayaa la waayay xilli ay ku safrayeen qayb ka mid ah keymaha Amazon. eedeysanaha ayaa sidoo kale booliska u sheegay meesha ay ka heli karaan meedadka labada ruux ee uu dilay. mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay sidoo kale aaminsan yihiin in falkaas ay ku lug lahaayeen dad kale oo wehelinayay ninkan. isbahaysiga uu Mareykanku hogaaminayo ee ku sugan wadanka Suuriya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hogaamiye sare oo ka tirsan xubnaha ururka dowladda Islaamiga ah kaas oo lagu soo xiray howlgal dhacay xilli aroor hore ah. qofka la qabtay ayaa lagu sheegay inuu yahay khabiir aqoon u leh sameynta bambooyinka, balse faahfaahin kale lagama sii bixinin. hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka lagu khasbay inay guryahooda ka qaxaan ay mar kale gaartay heer taariikhda aan horey loogu arkin. xogta qaramada midoobay ayaa muujinaysa in dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ay dadka dunida ku barakacay tiradoodu ahayd in ka badan 1 milyan oo ruux, kuwaasoo guryahooda uga cararay sababo la xiriira dagaallo iyo cabsi ay ka qabaan in dacwado lagu soo ogo. bangiga dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay sare u qaadistii ugu weyneyd ee lagu kordhiyay qiimaha lacagaha dulsaarka ah, taasoo heerkii ugu sarreysay la gaarsiiyey muddo 30 sano ah gudahood. qiimo kordhinta oo ah 75% ayaa ka turjumaysa tallaabada adag ee uu bangiga kaydka u ah federaalka Mareykanka u qaaday si uu hoos ugu dhigo isbeddelka sicirka lacagaha oo hadda maraya heerkiisii ugu sarreeyay muddo 40 sano ah. suuqyada saamiyada ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aanka lagu kordhiyay dulsaarka. ugu dambeyntiina wadaadka saameynta badan leh ee u dhashay dalka Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa xaqiijiyay inuusan u soo istaagi doonin doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay oo ay sababeen iscasilaadaha badan ee xubnaha baarlamaanka ku matalayay xisbigiisa. Mr. Sadr ayaa sheegay in uusan qayb ka sii ahaan doonin waxa uu ugu yeeray siyaasiyiinta musuqmaasuqa ah. warkii caalamka waa nageyntaas aan dib idinkugu celiyay Faadmo Macalin Abu Kar. mahadsanid Cabdishakuur.
aanu ku horeynay sidii aad warkeenaba ku maqlayseen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu gargaar cusub oo bilaayin dollar ku kacaya gaarsiin doono Ukraine. Kumanaan rayd ah ayaa weli ku go'doonsan magaalada Severodonetsk kuwaas oo ay ka sii go'ayaan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida ay ka digayso qaramada midoobay. Badankood ayaa haatan hooy ka dhiganaya dhismaha shirkadda kiimikada ee Azod. Faahfaahinta warkana waxaa inoo hayay Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu shaaca ka qaaday taageerada militari uu dalkiisu siinayo dalka Ukraine. taageeradaasi oo balaayiin dollar ay ku kacayso ayaa ka kooban madaafiicda goobta, hub loo adeegsado difaaca dhinaca badda, rasaas iyo nidaamka gantaalaha oo casri ah. ballanqaadyo hor leh ayaana ka soo yeeray xubnaha gaashaanbuurta NATO oo Arbacadii ku kulmay magaalada Brussels. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky fariin muuqaal ah uu xalay baahiyay wuxuu uga mahadceliyay dowladda Mareykanka sida ay xulafadeeda u abaabushay si ay u caawiyaan Ukraine. Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay xoojinta cusub ee difaaceena, xirmo cusub oo $1 bilyan oo dollar ah. waa difaaca xeebaha, madaafiicda iyo nidaamka gantaalada casriga ah. waan sugi doonaa waana ka mahadcelinaynaa caawinaadan. taageeradanina waxay si gaar ah muhiim ugu tahay difaaceena Donbas. taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Ukraine Valery Zaluzny wuxuu sheegay in Ruushka isku mar ay weerar ka soo qaadeen 9 jiho kala duwan si ay u xaqiijiyaan gacan ku haynta gabi ahaanba gobolka Luhansk. Zelensky wuxuu intaasi ku daray ciidamada Moscow inay weerarada u adeegsanayaan diyaarado, nidaamka gantaalaha iyo waliba madaafiicda goobta intaba. General Zaluzny wuxuu carabka uu ku adkeeyay magaalada Severodonetsk inay muhiim u tahay difaaca gobolka. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin wuxuu sheegay in awoodda la isugu geynayo si loo xaqiijiyo Ukraine inay heshay hubka ay u baahan tahay. Ukraine ay haatan marayso halkii ugu muhiimsanaa ee dagaalka. ma aaminsanin inaan baahi kasta berri dabooli karno. 2 toddobaad kadib shuruuduhu waxay u badan tahay inay isbedeli doonaan. marka waxaan u malaynayaa inay habboon tahay inaan taa maanka ku hayno. marka aad dagaal ku jirto weligaa wax kugu filan ma helaysid, si degdeg ahna uma heli kartid. laakiin waxaanu ku dadaali doonaa inaan hubinno inaan samaynayno wax kasta oo suuragal ah oo bani aadam uu samayn karo, oo waxaanu sii wadi doonaa inaannu dhaqaajinno taageero dhan walba leh si ay u helaan awoodda ay u baahan yihiin. dhinaca kale muddo toddobaada ciidamada Ruushka weeraro culus oo hadafkiisu yahay qabsashada magaalada Severodonetsk ayay wadaan, waxayna ciidamada Moscow qabsadeen qaybo badan oo magaaladaasi ka mid ah, halka bariga magaaladaasina weli gacanta uga jirto ciidamada Ukraine. afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha bani'aadanimada ee qaramada midoobay Saviano Aberu wuxuu BBC u sheegay walaaca ugu weyn ee magaaladaasi ka taagan inay tahay biyo iyo weliba fayadhowrka magaalada oo haatan aad u liito, gaar ahaan biyo la'aanta magaaladaasi ka jirta ay dadka ku nool magaaladaasi ay xaaladooda khatar gelinayso maadaama ay biyo la'aan noloshu sii soconayn. qaramada midoobay waxay sheegtay inay rajaynaysay deegaankaasi gargaar bani'aadanimo inay la gaarto, balse ay haysan dhammaanad amni oo lagu gaari karo dadka rayadka isugu jira haween, caruur iyo dadka da'da ah ee magaaladaasi ku sugan maadaama ay magaalada ka socdaan dagaallo culus. Arbacadiina sargaal taabacsan gooni goosadka Ruushka uu taageero ayaa ciidamada Ukraine ku eedeeyay inay gebi ahaanba hor istaageen qorshihii lagu daadgurayn lahaa dadka ku go'doonsan warshadaasi, inkastoo BBC ay xaqiijin karin sheegashadaasi. warbaahinta Ruushka ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Ukraine inay dadka rayadka ay ku go'doonsan halkaasi ay gabaad ka dhiganayaan. dadka ku go'doonsan warshadana waxaa tiradooda lagu sheegay inay gaadhayso 1200 oo qof oo caruur ku jiraan. Moscow oo qabsata magaalada Severodonetsk waxay awood u siinaysaa hanashada gobolka Luhansk oo intiisa badan ay gacanta ku hayaan kooxaha gooni goosadka uu Ruushka taageero. aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ra'iisul wasaare waxa uu magacaabay Xamza Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, xubinna ka ahaa xisbiga madaxweynaha. madaxweynaha ayaa sheegay inuu in muddo ah ka baaraandegayay xulashada qofka noqon doona ra'iisul wasaaraha, isla markaana uu arkay in Xamza uu yahay shaqsi ka soo bixi kara hawshan. Xamza oo hadlay kadib magacaabistiisa ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad u qalanta inay dalka markaasi samato bixiso kana shaqeyso hadafka ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah.
madaxweyne waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taas oo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimaysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaal maanta madaxweyne waxaan ognahay kasakow mashruucaaga tamuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aasaaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka u dhiisu daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabayn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wada hadalka walaalaheena Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo loo gungaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale loo horumarin lahaa looguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo daa'irta Soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhaga weyn ee ballaaran ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Ra'iisul Wasaaraha ayaa intaa waxa uu raaciyay in uu qorsheynayo inuu soo dhiso xukuumad tayo leh isagoo bulshadana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan. runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horeyso kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan adiga iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhammaanteen u istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeena dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayno muddada dheer aad baad u mahadsantahay madaxweyne haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre wada shaqeyn noocee ah ayaana soo dhexmartay isaga iyo madaxweynaha Dr. Bashiir Cabdisamed Xareed oo wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho in ka badan 20 sano ay siiqeyneen ayaanu ka wareysanay wuxuuna u waramay wariyaheena Saxnuun Axmed waxaan naqaanay muddo 25 sano dhan jaamacadan isla aadnay Yemen 97 haddana kadib Malaysia aan arday ka wada noqonay muddo dheerna wada shaqeynay marka macrifo badan baan horta u leeyahay alxamdulillah inta markan ka soo gudbo Hamza waxaan isleeyahay saddex arrimoodba waa qof munaasab oo dhinacna daahan waa nin hadda aan isla raga konton fooda geliyay aqoon ahaan ilaa master degree buu haystaa khibrad ahaan 20 iyo dhowrkii sano la soo dhaafay qof ka shaqeynaya adaha horumarinta ummadda gaar ahaan waxbarashada sida jaamacadda Muqdisho jaamacadda Kismaayo hay'adda dalada waxbarashada ahliga ah FBNS loo yaqaano intaba ka soo shaqeeyay buu ahaa marka runtii waxaan isleeyahay aqoon ahaan iyo khibrad ahaan iyo daahanba in shaqadaas ku habboon weeye ma jiraan waxyaabo aad adigu ka og tahay Xamze oo aad isleedahay muddo kadib dadka shacabka way ka ogaan doonaan oo aad ku tuhmayso horta inta hadda aan la soo shaqeeyay ama aan isnaqaanay waxyaalaha aan isleeyahay Xamze waa u gaar xakamada waa nin wadaad ah oo runtii diinta si fiican u yaqaana luqada carabiga iyo luqada ingiriiska si fiican u garanaya dhanka diinta sidoo kale waa shakhsi aqoon ahaan dhisan dalkana joogay oo weligii aan ka bixin dalka in waxbarasho jaamacadaha u aado mooyaane waa shakhsi degan oo aad u fiirsada waa shakhsi xishood badan qof khilaaf badan oo dhib badan maaha waa shakhsi isku daya in mar kastaba inuu nabadooneeyo oo odayeeyo marka aad waxaan u filayaa shakhsiga ugu munaasibsanaa inuu noqon karo xasan sheekh ay wada shaqeyn doonaan mustaqbalka soo socda insha Allah xildhibaan ayuu hadda ahaa ra'iisul wasaaruhu inta aan loo magacaabin jagadan Jubbaland ayaana laga soo doortaa wuxuu sidoo kale xiriir wanaagsan la lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo uu mar noqday gudoomiyaha
guddiga doorashooyinka ee Jubbaland marka arrintaas waxa ma ka tari kartaa ayaad isleedahay xalinta khilaafka arrimaha Jubbaland sida gobolka Gado oo kale waa hubaal Jubbaland iyo federaalka intaba uu ka shaqeeyay oo horey intuusan Jubbaland u aadin mootay federaalku ka shaqeyn jiray oo wasaaradda dastuurkii wakiil la taliyaha oo ahaan jiray madaxweyne xasan sheekh ragga shaqeyn jiray kamid ahaa xilligii hore 2012 ilaa 2017 marka intaasna qof dalka duruufaha ka jira gaar ahaan xaaladda Jubbaland iyo federaalka cilaaqaadkooda la socda ayuu ahaa runtii dawaag dhaweyto markii uu Jubbaland joogay ee guddiga doorashada iyo xuduudaha madaxda ka ahaa awoodihiisa iyo shaqadiisu shaqaadu xadidan bay ahayd laakiin hadda maadaama mas'uuliyad qaran uu qaaday waxaan aad iyo aad u filayaa inuu shaqada ugu horeysa ka dhigi doono oo uu nabadeyn doono waa hubaal xaqiiqatan inuu dareemayo mas'uuliyad culus inay ka haysato dhankaas inuu xalliyo khilaafaadka maamul goboleedyada dhexdooda gaar ahaan Jubbaland iyo arrimaha siyaasadeed ee ka jira waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo arrinta aad soo hadal qaaday oo la xiriirta in ay muddo soo wada shaqeynayeen madaxweyne xasan sheekh waxaad nooga sheegi kartaa shaqooyinka ay soo wada qabteen marka laga soo tago inta uu madaxweynaha ahaa xasan sheekh oo uu joogay filla Soomaaliya xilligii xasan sheekh hore uu doorashada galay 2012 horta xisbigii la dhihi jiray BDP Peace and Development Party oo soo wada asaaseen xisbiga gudoomiye xasan sheekh ka ahaa Ra'iisul Xamzana wuxuu ka ahaa xogayaha guud ee xisbiga dhinaca kale markaas uu mataqaanaa xisbiga ay dadka wuxuu kamid ahaa ugu dhadhow madaxweynaha oo la talinayay dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada oo runtii markaas aad u baaba'sanayd shakhsiyaadkii madaxweynuhu u xilsaaray kamid ahayd inuu soo dhiso shaqo fiican buuna runtii ka qabtay sida aan macluumaadka ku helay inkastoo markaas inta badan aan dalka ka maqnaa sidoo kale markii wasaaraddaas ka tegay waxa uu ku wareegay wasaaradda dastuurka oo guddigii dib u eegista dastuurka ayuu haddana kamid ahaa oo mataqaanaa wasaaradda ayuu guddigaas arrimihiisa la taliya uga ahaa marka arrinta dib u eegista dastuurka laftiisa shaqo fiican ayuu ka qabtay markii dambana inkastoo aysan ku guuleysanin doorashada 2017 markii doorashadii madaxweynaha ay dhacaysay raggii campaignki madaxweyne xasan sheekh aad uga shaqeeyay kamid ahaa wax ka hogaaminayay haddana dabcan markii doorashadan hadda madaxweyne xasan sheekh kusoo baxayna wuxuu kamid ahaa ragga budhiga uu xisbigan hadda UDP ee dambe oo xoogaa wax laga bedelay ayuu kamid ahaa raggii tiirarka u ahaa ee xasan sheekh soo bixidiisa ka shaqeeyay marka intaasoo dhan almost waa muddo 10 sano ah ay wada shaqeynayeen intaasna hal xisbi bay ku wada shaqeynayeen rag isla soo jabay oo isla soo shaqeeyay wax badan isku aragti ka ayaan u arkaa anigu inkastoo dee mataqaana dabcan adisheeda aan ka qiimeynayo aanan hoos shaqooyinka faahfaahinteeda aanan samayn karin laakiin runtii waxaad moodaa inay 10 sano soo wada socdeen kaasina waxa uu ahaa Dr. Bashiir Cabdisamad Xareed oo wax ka dhigay jaamacadaha magaalada Muqdisho wuxuuna u waramayay wariyaheena Saxnuun Axmed dhageystayaashana qaarkood ayaa qodobkaas bogayna Facebook raayigooda uga soo dhiibtay waxaana kamid ah Cabdisalaan Cali oo magaalada Muqdisho jooga waxa uu leeyahay hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha runtii waa arrin sax ah oo loo baahan yahay in haddii uu xukuumad adag soo dhiso lala shaqeeyo waxaan dadka Soomaaliyeed ay isha ku hayaan si ay xukuumad ay markaasi u shaqeyn doonto dhageystaan kale oo Mustafa Cumar Cabdi oo jooga Cadaado aan soo dhaweynaya yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh balse isweydiintu waxa ay tahay yiri 4 sano ay soo socota dalka ma sii hogaamin doona maadaama la waayay ra'iisul wasaare muddo xileedka la dhameystay madaxweynaha dhageystaan kale Ibraahim Aadan Maxamed waxa uu jooga Garbahaare gobolka Gedo waan soo dhaweynaya yiri waxaan leeyahay shaqo culus ayaa ku taala ee adigana dardar ka rabto wali waxa jira gobol ka tirsan Soomaaliya oo aan dawladii ka horeysay buuqiyo qalaaso ay ku dhaaftay ayaa uu yiri aad ay dhageystayaashaasi u mahadsan yihiin iyo kuwa kale wali halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba dhegeystayaal haatana siyaasi Jamaal Cali Xuseen oo suugaanta si weyn u tiriyay iyo waliba sheekooyin qosol badan leh kuwaas oo ka qoray buugga diiwaanka qosolka ayaa haatan waxa wax ka bartaa dalka Mareykanka isagoo siyaasadana muddooyinkii ugu dambeeyay ka nastay haddaba barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaa waxa uu ugu waramay wariyaha BBC-da Faadimo Taxadar Yuusuf
waxbarashadana dib aan ugu noqdo inkastoo waxbarashada lagama dhamaadee waxaan sameynayay ilaa intii siyaasadda isla yara wareersanay degree kale ayaan qaaday oo masters degree oo xagga qoraalada iyo writingka ah oo storiyinka sheekooyinka non fictionka ah waxaan imika wadaa PhD program oo jaamacadda John Hopkins University ee ku taala dalka Mareykanka Washington DC dhawaan iyadana aan hawsha u tafaxaytay marka PhD program kale oo doctorate program ayaan qaadanaya insha Allah oo aan hawshiisa ku dhex jiraa taas ku yara mashquulsanahay oo hawlayga intii dambe aan xoogaada hawsheeda aan u leexday waa tahay badmad curus oo suugaanta sida gabayo heeso maasooyin kala duwan kama wada gayon karno inaan halkan ku soo wada ururno ama barnaamijkan aan ku wada kulmayno marka waxaan rabaa qaybtooda inaan ka soo qaadano waliba qaar kamid ah heesahaaga jacaylka ah waxaan rabaa hees ay dhexdaas ku luuqeeyeen Cabdifataax Yare iyo fanaanada Ikraan Caraale Cabdifataax Yare waxaan filayaa fanka hadda uu ka baxay heestii mililico bal heestaasi ujeedkeeda iyo waxay daarnayd Jamaal Cali Xuseen nooga sheekay walaal tantahay inkastoo aan heesaha iyo aan intii waxay ugu dambeysay maalmaha dhowr iyo 10 sanadood malaha heesaha 12 sanadood heesi waxaa marin heeso dhowr heesoodo jacayl xagga xaajideedan dhex maray oo banana ka sameeyeen muuqaalo marka qaar dad kale oo iyaga laftirkooda aan dee asxaabnahay oo iga codsadeen aan u sameeyay barigaaba aan u sameeyay laakiin kulley horta suugaanta aniga waxay tahay dee iska baartaa aniga ma oran karayo waan weyn baan ahay anigu iyo laakiin suugaanta jacayl baan hawada sadana sameeyay dee ama tiriya tixda iyo tiraabtaba labadaba laakiin kulley marka heestaasi waxay ahayd laba qof oo ma ka sameeyay oo dee isku doonayeen isguursadaan isjecel oo markaa doonayeen inay guur dhex maro oo jacayl markaa daabuuray muuqaalkooda ka sameeyay bariga waa laba qof oo isjecel oo dee isu sheeganaya caashiqii iyo dee wanaagii ay isu qabeen oo doonayeen inay qoys wada wadaagaan oo ka dhexsan anoo laxankaan isku day jirin bal habeenkaan anigu laxanka isku day oo aan balbal anaa laxankan u dhiisanaa barta liigu wareeriyay baan isku dayayaa weliga horta laba laxan baan sameeyo taay hees kale heshiis guur la faad Cumar qaado kaba fiican hadaba adigu laxanka heeskan saartay oo miligeeda leedahay bal maxaa naga maqashin kartaa qaybta ugu horeysa wallahi horta de anigu aan cod xumahay oo bariga yaraaban soo gaaday iskuulka inaan cod xumahay inta barigii ugu horeysay wati iskuulka la soo kicin jiray markaas inta la soo kiciyay baa la yiri hees qaado markaasaan qaaday oo saciid saabi timo weeyay baaskii dhamaa horta maalintaasaan gartay inaan cod xumahay markaas joojiyay inaan heeso ma hadii lagu sacabin lahaa waa ku dhiiranay fanaan baad ku sigatay markaas fanaan waan garanayna fanaan noqon karin laakiin xagga abuurka iyo waxa aan iska fiicnaa ciyaar Soomaaliga ciyaari jiray anigu inkastoo aan ku fiicnayn codka isku daydo waxay mililacada quruxdiyo intaan ma jirtaa muuqaana aniga daalaya markaas naga fanaaniinta waa ka yaabay sida dhuuntooda intaa yar baan ku daarayaa waa tahay diiwaanka qosolka waxaa jira buug aad soo saartay oo qaybo kala duwan aad ka soo saartay bal horta waxaad nooga xog warantaa buuggaasi diiwaanka qosolka sheekooyinkii ugu qosolka badnaa 2 iyo 1 baa nooga soo qabo imika sheekooyinka kuwa ugu xiisaha badan waxaa kamid ah nin sheekada dibiga Sheekh Cali la yiraahdo reer Muqdisho ayaa wiilkiisii la hadlay oo Norway jooga wiilkiisii baa ku yiri aabo gabarna aroos raba odayna aray khayra sheegtay gabadha cidday ahayd gabadha Soomaali ma aha cadaan waayo markaas odaygii wuxuu doonay marka wiilkiisa sidoo gabadha uu joojin lahaa markaas uu sheekay uu soo qaaday markaas arimo xasuusta markaan suuqa xoolaha degan cidii ma xasuusta waa xasuusta ayuu ahaa Sheekh Cali maxaas xoolo ka qabay dibigaas maxaas ku subin jiray Sheekh Cali waxaas ku subin jiray xoolaha saayaasha loo keensin jiray ugu boodi jiray saasa lacag lagu siin jiray Sheekh Cali wuxuu yiri adigu ma aragtay wali cid inta ku soo noqday Sheekh Cali dhahays dibigiina weeshanaas dhalay qaata markaas markaas adiga good dibiga Sheekh Cali Norway ka noqonaysa ad leewaay marka ka wada hadii caruurtaada dad gabadh ajnabi guursa caruurtaada waa laga kaxaysan dibiga Sheekh Cali ma noqonaysa dibna markiisa caruurtaada wuxuu doonayay ku hoogo tasaalayo si wiilkiisa uga joojiyo inuu gabadh ajnabi guursan kaas mid buu ahaa
waa tahay wareysigaasi siyaasi jamaal cali xuseen oo u waramayay faadimo taxadar yuusuf dabcan isagoo dhammaystiran barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee galabtoo kale aad inooga barateen ayaad ku maqli doontaan haddii eeba idmo. haatana dadka reer nigeria ayaa u dareeri doona doorashada sanadka soo socda dhowaana xisbiyada siyaasadda ayaa bilaabi doona ololahooda qeyb gaar ah oo dadweynaha ah oo ay had iyo jeer u baahan yihiinna waa haweenka ka ganacsada suuqa sababtoo ah tiro badnidooda iyo weliba isku xirka bulshada hoose ayaa waxaa la sheegay inay door muhiim markaasi yihiin. dowriyaha b b c da arrimaha haweenka casiisaad ololuwa ayaa warbixintan ka diyaarisay. waa kan ciise xaaji cabdille oo soo jeediya. waxaan joogaa suuqa cuntada oo Balende ee bartamaha Lagos. waa mid ka mid ah suuqyada cunnada ee ugu muhiimsan aagan. Cabeyduun waa haweeney kabanla ah oo inteeda badan iibisa hilibka digaaga. hooyadan labada carruur haysata waxay ku mashquulsan tahay u adeegida macaamiisheeda iyadoo wax ra'aan ka haysan qoraxda aadka u kulul ee Lagos. sida qaar badan oo kale oo la mid ah Cabeyduun waxay la halgamaysaa quudinta qoyskeeda. Things are expensive. There is inflation. wax walba waa qaali, sicir barar baa jira, saas awgeedna faa'iido badan ma samayno waqtiyada ugu badan. And because of that, we don't make profits most times. sanadkii 2020 xafiiska tirakoobka qaranka ee Nigeria ayaa ku qiyaasay in haweenku ay yihiin 49% ee tirada guud ee dadweynaha dalkaasi ku nool ee 206 milyan oo qof ah qiyaastooda. waana qiyaastii ugu dambeysay ee dhawaan la sameeyo. tani waa sababta haweenka suuqa ka ganacsada oo ah koox muhiim ah oo codbixin iyo kuwa kale oo ay qortaan xisbiyada siyaasadda si ay ugu ololayaan. It is only when politicians are keliya marka siyaasiyiintu ay raadinayaan codod waxay rabaan in ay nagu soo jiitaan. looking for votes that they will want to impress us. siyaasiyiintu way u fududahay inay sidaasi ku soo jiitaan codbixiyaashan marka la fiiriyo xaaladooda dhaqan-dhaqaale awgeed. caadiyan waxay siiyaan lacag cadaan ah ama cunto beddelkeeda taageeradooda, laakiin doorashada kadib waxay intaa ka badan ka tagaan taageerayaashaas. tani waa sababta wakhtigan ay u leedahay qorshe ka duwan. Market people here have decided not to vote for any politician this time around. dadka suuqa ku nool waxay go'aansadeen in aanay wakhtigan u codayn qof siyaasi ah sababtoo ah mar haddii ay guulaystaan waxba inooma qabtaan. taa beddelkeeda waxay bilaabi doonaan in ay naga eriyaan meesha aan wax ku iibinno. waxaan lumiyey wax badan oo raasamaal ah taas awgeed. I have lost a lot of my capital because of that. marka la eego rajistaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee dalkaasi Nigeria, dumarka ayaa badan marka loo eego ragga. dhanka codbixiyaasha isdiiwaangeliyey inay codeeyaan doorashada 2019 dalkaasi ka dhacday. siyaasiyiintuna aad ayay ula socdaan. Shehu Sani waxa uu ka soo shaqeeyay sanadka Nigeria ee 2015 waa uu nala socdaa ahmiyadda ay dumarka leeyihiin. ganacsatada suuqa haweenka oo ah tir weyn oo codbixineed ayaa inta badan laga faa'iidaystaa doorashooyinka. Market women are good mobilizers. haweenka suuqleyda ah waa dad abaabulka ku wanaagsan, waana sababta ay siyaasiyiinta mar walba haweenka uga agdhow yihiin. gabadha suuqa ku jirta waxay awood u leedahay in ay iibiso musharax ama inay burburiso musharaxa. To sell a candidate or to destroy a candidate. siyaasiyiinta ayaa mararka qaar meesha u taga inay iska dhigaan in ay iyaguna yihiin dad asal ah. To pretend as if they are also grassroots people. haweenka suuqa ayaa waxaa ka faa'iidaysta laba nooc oo dad ah. mid waa hogaamiyaasha suuqa haweenka, marka labaadna waa siyaasiyiinta laftooda. The leaders of the market women, and then secondly is the politicians themselves. iyadoo doorashada dalkaasi ay dhowdahay, dadka falanqeeya siyaasadda sida Toyin Tawo ayaa rumaysan inaysan xaaladdu waxba iska bedeli doonin sicir bararka iyo shaqo la'aanta dalka ka jirta awgeed. haweenkani ayaa ku jira xaalad quus ah. iyadoo xisbiyada siyaasadeed ay bilaabeen inay isu diyaariyaan doorashada bisha Febraayo ee sanadka 2023 dalkaasi ka dhici doonto, ayaa waxaa soo baxaya baaqyo loo jeedinaya siyaasiyiinta inay ugu dambeyntii wax ka qabtaan oo ay dabada ka reexaan sharci hagaajinaya habnololeedka haweenkan, isla markaana ka caawinaya xaaladooda dhaqan-dhaqaale.
ciise xaaji cabdulla warbixintaasi noo soo jeedinaya aad ayuu mahadsan yahay. haatana cayaarihii haddii aan eegno dacwad ayaa lagu soo oogay shakhsiyaad uu guddiga cayaaraha cricketka ingiriiska ku eedeynaya takoor ka dhacay magaalada Yorkshire. dadkan oo aan la magacaabin waxaa laga yaabaa in markaas laga mamnuuco cayaaraha. waa hagaag dhegeystayaal idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa.